السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barashada cilmiga video editingka waa cashirkeenii shanaad. maanta waxaan qaadan doonaa haduu ilahay yiraahdo behaviorska waxay ku suurta gelinayaan sawirka inuu asiga naf ahaantiisa oo uu sameeyo animation dhaqdhaqaaq uu sameeyo maana waxaan soo qaadan transitions labada sawir meesha ay iskaga gudbayaan ayaa waxaa sameynaya dhaqdhaqaaq, laakiin kan wuu ka gedisan yahay sawirka ama muuqaalka ama qoraalka naf ahaantiisa ayaa waxaa sameynaya animation. marka sawiradan aan soo gelinaynaa qaybtan hore usoo sheegay property-ga markasteeta waxaa noo soo saarmaayo sawirkeena meeshii scalekiisa meeshaan ka weynay lahaynay, opacity-giisa meeshaan ka yaray lahayn oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan ayaa noo soo saarmaayo. markan intaan isaga keenaynaa kan opacity waaye sawirkaada inuu si fiican loo arki waayo oo kaleeto ama sawirka uu ku dhex milan yahay. waxay aada u isticmaalaan dadka copyright in laga qaato diidan ayaa waxay sameeyaan loogadooda ama qoraalkooda ay dhexgeliyaan opacity-ga. marka kan waan soo qaadanay kan isagan intaa ka weyneyn karnaa. waxyaaba iska fani ah fadliga uu hadalka leeyahay oo kaleeto ka hadlaya kan. marka waxyaaba iska faa'iido badan waa dadkii carabi yaqaano way ka faa'iidi karaan. halka saddexdaana nagu filan. marka behaviorka muxuu yahay? behaviorka soo qabanaynaa oo tagaynaa behavior sida ka muuqato kan sidaas u sameynaa. waa fahanti soo ma kan oo kale kan markasta midkaa kor tagtid qaabka uu sameynayo ku sheegay. marka kan oo kale soo qaada kan ku dulday hadii aan daarno muxuu sameynaa soo galay kan soo qabo okay kan soo qabo daar marka behaviorka qaabaas ayay sameeyaan. waa la fahmay soo ma? marka cashirkeena waa iska kusoo koobaynaa. behaviorkaas codna waa ku sameyn kartaa, maxaa lahayay muuqaalna waa ku sameyn kartaa, qoraalna waa ku sameyn kartaa. marka intaas isaga soo gabagabeyneynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.